ku gasheen yaad la heshiiseen asmara heshiiskaas asmara dawladda federaalkan la heshiinay dawladda kililkana way joogtay iyaduna qayb bay ka ahayd iyadoo federaalka la socota door intee la eg bay ku lahayd heshiiska dawladda Somali State door fiican bay ku lahayd soo dhaweynta iyo xubin waqtiga kamid ahayn laakiin annagu dadka aan doonay responsibility qaadaan waxay ahayd dawladda federaalka laba wasiir oo federaal iyo madaxweynaha ismaamulka socday waqtiga Ethiopia ay ahaayeen dawladda Somali State ayaa heshiis jabisay ayaad ku qorteen bartiina Twitter-ka waxaynu ognahay dawladda Somali State iyo ONLF colaad u dhaxaysa inaanay jirin iyo sabab ay heshiis u galaan maxay tahay heshiiska ay jabiyeen ee aad ku eedeyseen Somali State sax ma su'aashaas noocaad u dhigayso dawladda dagaal naga dhaxeeyay baa jira ismaamulka Soomaalida iyo ciidankooda iyo ciidanka Ethiopia Malaysia iyo Liu booliskooda iyo hay'adahooda iyo jiritaankooda iyo wakiilka ay dawladda Ethiopia ka ahaayeen marka heshiiska ay Addis Ababa saxiixdo Jigjigana way ku qasban tahay marka heshiiska ay Jigjiga saxiixdana way ku qasban tahay muxuu ahaa Addis Ababa marka wax kala dhambalan ma jiro heshiisku wuxuu ahaa ONLF inay mabaadi'deeda iyo astaamaheeda iyo ujeedooyinkeeda iyo halkudhigeeda iyo ahdaafteeda u halganto meel kasta oo dalkeena Soomaalida kamid ah iyo meel kasta oo Ethiopia gudaheeda ah oo ayna gacan jirin mudane afhayeen heshiiska cidda aad la gasheen waa Ethiopia cidda loo baahnaa inay fulisana waa Ethiopia yacni maxaa keenay baan u jeedaa in ay iyagu heshiiskii jabiyaan qayb kamid ah sida aad hadalka u dhigteen iyagu soo qayb kamid Ethiopia ma okay waa qayb Ethiopia kamid ah laakiin dawladda federaalka ah mas'uuliyadda qaadanaysa haddana iyada dawladda federaalka baan u sheegnay in khaladaad lagu samaynayo waxaanu ku heshiinay soo ma habboonayn inaad dawladda federaalka eedeysaan oo aad tirahdaan heshiiskii aanu idinla galnay ayaad jebiseen haddii dawladda kililka la eedeeyo federaalku way eedeysan yahay haddii federaalka lagu eedeeyo muxuu ahaayey hawlihiisana kililku waa kamid weeye marka meesha lagu jebiyey waa ismaamulka dhexdiisa meesha lagu jebiyey waa gobolada iyo degmooyinka iyo qabaleeyada cidda responsibility tooska ka ana waa ismaamulka dawladda Ethiopia responsible way ka noqon kartaa waa iyadana waa dambiga way la qaadanaysaa marka waa inay ogaato in heshiiskii aan galay meelaha lagu jabinayo madmadow badan baa ku jira bay shacabku leeyihiin heshiiskii asmara ma u bayaamin kartaa waxyaabaha aad ku heshiiseen si looga xisaabtamo Ethiopia shacabkuna u ogaado waxaa in badan baan sharaxnay marka madmadowgu ma dhamaadanayo 2 sano 3 sano waan sharxaynay heshiisku wuxuu ahaa heshiiskaasi heshiis mabda'i ah oo ah inay ONLF nabad uga halganto dalkeeda dagaalkana joojiso Ethiopia ay dagaal ka joojiso dadka Soomaalida ah iyo ururka ONLF dagaalka ay ku hayso in colaadda labada dhinac kala deystaan in waxyaabaha aasaasiga ah la isku khilaafsan yahay si farsamo iyo guddiyo gaar ah ay ka sii wada hadlaan in xuquuqaha dadka Soomaalida ka maqan si wada jir muxuu ahaayay looga hawlgalo sidii loogu soo celin lahaa heshiisyo mabda'i ah oo qodobada ay ugu muhiimsan yihiin buu ahaa muxuu ahaa heshiiska aan la galay Ethiopia mabaadi'danada iyo dhaqankanaga iyo inaanu wadano si nabadgelyo ah iyadoo gacan qaadaynin yahay marka sidaas ay xaaraan u noqonaysaa in xafiiskanaga la xidho in xubno kaana la xidho in calanka iyaga la diido in isu imaatinka iyaga la diido in muxuu ahaay muujinta ujeedooyinkanaga in la diido sidaas heshiiskii ay xadgudub ugu tahay okay mudane afhayeen waxaan ognahay mar aad media ka hadashay xasuuqi ka dhacay Somali State iyo deegaanka gobolka Ogaden in uu ahaa dagaal sokeeye ayaad ku sheegtay ogaanshiyaha iyagu waxa weeye xasuuqaasi waxa geystay Tigray shacabkuna waxa ay leeyihiin Tigreega maxaynu isu nahay ma sokeeye ayay ahaayeen hadday si sokeeye ahaayeen maxaynu ula dagaalanay saasay hadalka u dhigayaan Tigray baa sokeeye iyo Ethiopia sokeeye midna ma naadin su'aasha ka jawaabaynina waxay ahayd dadkii Soomaalida ee la saftay Tigray iyo Ethiopia ee dambiyada galay kuwaas Soomaali ma ahayn ma Soomaali bay kuwaasi ahaayeen laakiin iyagu macna mayna sameeyeen muhiimadana waxa xasuuq lahaa TPLF dad badan sida ay leeyihiin dawladda Ethiopia waa inay xasuuqa qirato dadkii Soomaaliyeedna waa inay magdhow siiso
dawladda kililka ee marin habaabinta ku sameynaysana dhaawicii baa la daweyn layahay bugtadii baa la daweyn layahay agoontii baa la quudin layahay guryihii laga dhacay hantii laga dhacay baa magdhow laga siin layahay markaasa waxaa lagu celcelinayaa in la laayo diirkii u sheeg garan intaa dayar ahaysaanay in dadkan la laayay way ogyihiin dad Soomaali oo la adeegsaday iyo Ethiopian inay laayeen waa la ogyahay state of muxuu ahaayay inay itiraafto weeye dawladda Ethiopia inay xasuuq organized dadka loo geystay magdhow baana markaa ku waajibaya waxaanu ka doonayna dawladda kililka inaan ka wada shaqeyno taa weeye afar Soomaali oo lagu wareegsanayo jigjiga dhagaxda lagu tuuray iyo laba ruux baa lagu dakray iyo jeel ogaadeen kaliya lagu wareegsanay 1948 up to hadda aan joogno xasuuq bay ku sameyn jirtay dawladda Ethiopia xasuuq dhaqaale iyo ku physically iyo ku xoolo iyo ku barakicin iyo ku dhulaad baa lagu sameeyay inay itiraafto weeye marka laakiin dagaal sokeeye soo lama oran karo ma ahayn markaasi miyaan lagu degdegay ka dagaal sokeeye ma aha dadka Soomaalida ee abaabulan ee hadda jooga ee liyu boolis iyo maleeshiyaadka iyo xisbigii loo adeegsan hayay dambiyada galay way ku ka hadleen mudane Somali state iyo ONLF oo loo baahnaa inay dhinac wada noqdaan waxay isku dacweynayaan maamulka Ethiopia oo ahaa midkii lala halgamayay yaa jaajuusabay dadku leeyihiin markaa wala yaqaan cid noqon jirtay hay'adda dadka jaajuusi adeegayaasha ahayd Ethiopia laga soo bilaabo 94 markay ONLF ismari waayeen TPLF gacan qaad ku dhacay dadkii bedelay up to now waa dad ay adisoo magacawdo xoogagii ciidanka iyo xoogagii shaqaalaha iyo xoogagii xisbiyada ee la sameyn jireen kuwa Ethiopia sameeyay marka wax isku khaldan ma aha in aad isku khaldayso waramahay okay mudane waxogay khilaafada baa ka dhex jira baa leeyahay ururkiina maxaa ka jira khilaafaad weyn oo ururkana ka jira ma jiro marxalad cusub aan galay marka dadka qaar baa ku jahwareersan waa laga gudbaya insha Allah mahadsanid afayeen Cabdiqaadir Xasan Biixi Hirmooge loo garan ogyahay cadaani Hirmooge nooga waramayay xaaladaha jira ee waqtigan lagu guda jiro waa mahadsantahay mudane aad baa mahadsantahay